السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمي كمركان الدين سو سعودي يا وددن وين كسو لابي جيت كبربر كيسة واحد تاقناه المير وإلا تدبتشره وصفي عنو لبسن وبواكسته balse dhibta ugu weyn ee haysataa tahay siduu jidka uga talaabi lahaa samxadda baabuurta sanka isku haysa darteed waxaan xasuustay xaaladii nololeed ee aan ku sugnaa markaan isaga leekaa intaanan maansada u gelin hadiiba xusuustayda qadar aan dib u celiyo oo aan tago maalin ka mid ah maalmahan yarkaa leekaa ku dhawaad 20 daqiiqo oo aan xaafadayda ka maqnaa kadib ayaan isiri dib ugu laabo oo wadooyin isku wada mid ah dad isku wada eeg iyo guryo aan kala duwanayn jidkaan ka imi iyo kaan ku socdo iyo kuwa ballahayga ka leexanaya midkoodna ma laha calaamado iyo astaamo lagu kala sooco daqiiqad kastaba waxaan sii dareemayaa inaan anbadahay cabsiduna way igu sii badanaysaa daymada aqal kasta kaayagii buu ila ekaadaa wuu noqon waayaa anna waan ka noqdaa waxaan dhex meeraysanayaa ku dhawaad 5,000 oo qoys oo hal mar meel la wada dejiyey hoygooduna yahay taandhooyin wada cad oo taandha aanay taandha ka duwanayn show barwaaqada iyo ladnaanta intay dadku ku sugan yihiin sidiinan oo kale ayay kala muuqaal duwan yihiin dadka marka aan ka hadlayaa waa isku duruuf ku sugan nolosha halkii ugu hooseysay dad maqaarku ku wada dhagay dhabanadooda guteen dhaforaduna soo wada baxeen oo kii ku dhaafay ku hor socda hugooda iyo hargahooda aanad kala garanayn codkun baase lagu kala aqoonsan karaayay wana kaan miciinsaday anigoo ku dhawaaqaya hooyooy 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 intee buu saqayla wadi karaa ilmo yar oo daalan oo haraadan oo gaajoonaya oo anbadihi si kasta way dadku u diifaysan yihiin naxariistu kama dhammaatee kulba qof baa igu soo baydha halkee buusay geyn qofaan hebelnimo ina hebelnimo iyo jaarnimo midnaba aan ii garanayn in badan oo iyaga ka mid ahi waxaabay isku dayeen inay guryahooga i geeyaan balse aan ku xasilayn joogitaanka hooy aan hooyaday joogin baadigoobkii taandhadayadii iyo aqalkaygii ku aadanaa baan iska sii watay sidaalay carruurnimadaasi nugaylehe tamartaydii waxay ku soo ururtay oohin waxaan si farxad iskala garan waayay goor maqrib ku siman markii aan maqlay codka dhawaaqa hooyaday oo leh war xasanow igu dhagtay durbadiiba gacantay qabatay oo xaafadayeedii i geysay hooye waa hooyinoo inaan haraadanahay ogeyde biyaygu qabatay halkaasina waa halkaan ku garaadaystay dugsigana ka bilaabay waana xeradii qaxootigee la odhan jiray dulcad dadku xilligaa waxay ahaayeen isku duruuf aan kala lahayn taajir iyo faqiir oo dhammaantood kuyuu boorasho gala weelka ay wax ku cunaan wuxuu ahaa caag waxa ay cunaanna waxay ahaayeen qabadi iyo garraax saliid leh taasi oo bishiiba hal mar ay safaf dhaadheer u geli jireen maalmaha qaadashada raashinka ay u xaadirayaanna ciid ugamay duwanayn waqtigaa adag laga soo gudub la soo dhaafiyo waa nabad dalkii dib loogu soo guriye noqoy iskuuladii dib loo bilow haddana markii iskuullada dib loo bilaabay ma jirin bal caddan aa xidhan tihiin basaskan aad ku rawaxasaan iyo tilefoonadan casrigii aad sidataan waxaan qabaa jiilkii aan ka midka ahaa inaad ka nolol wanaagsan tihiin ood ka nasiib badan tihiin ood ka mustaqbal fiican tihiin waxaan sheekadaasi xasuusteeda idinku soo qaaday inaan xasuusiyo halka laga yimay quruxdan
shacnigan sharaftan wejiyadiinna ka muuqday ilaahay ka sakow waxaa suuro geliyey dadkiinna ka mid a idinkana waxaa laydinka doonayaa inaad jiilasha idinka dambeeya a u horseedaan nololtiinna ka dooroon waana mas-uuliyad idin saaran oo idin sugaysa waxaan idinku baraarujinayaa inaad wakhtiga qiimihiisa garataan oo intaad da'yartiin aad ka faa'iidaysataan si markaad gabowdaan aydaan qoomamo u heshin haddaad maqasho maalqabeen aqoon-yahan caalim ama cid kastoo nolosha horumar iyo tadawar ka samaysay iskama noqon waxa ay noqdeena waxa ay ku noqdeen ka faa'iidaysiga wakhtiga iyo adeegsiga maskaxda maalmo kooban waad ka faa'iidaysatay xusuustoodu waxay kuu dhashaa farxad halka maalmo kale oo kooban oo wakhtigaaga ka mida oo kaa dayacmay xusuustoodu kuu dhasho murugo iyo qoomamo sida xoolaha xero loogu ilaaliyo ee hantida qasnad ama baan loogu ilaaliyo ee sumcadda iyo sharafta dhowrsooni iyo dhaqan wanaagsan loogu ilaaliyo wakhtigiinna ku ilaaliya dadaal oo siday biyuhu bilaa midab bilaa ur bilaa dhadhan u yihiin noloshu yaana idinka noqon bilaa tacab iyo bilaa dadaal dadkuna laba nooc ayuunbay u qaybsamaan qof raje iyo damac leh iyo qof ujeeddo iyo qorsho leh inta badanna waxay wax u hagaagaan ka qorshaha iyo ujeeddada leh war haddaanaad lahayn ujeeddo iyo hadaf aad buugaagta u sidato oo aad u soo kallahaso oo aad wax u baranayso ma yeelin kartid aragti aad ka midho dhaliso wax kastoo bataana way jabaan oo way raqiisaan marka laga yimaado akhlaaqda iyo camalka wanaagsan haddaad suuqa baabuur liina maanta soo geliso ood haddana berri soo geliso oo sahan dambe soo geliso ay liintii suuqa qabsato haddii 500 shilin la siinayay badashadeeda kadib waxaa laga yaabaa in 100 shilin la siiyo wax kastaana sidaasay u jabaan marka laga reebo dhaqanka wanaagsan iyo acmaasha suuban khayrka ugu weyn ee qofku naftiisa u sameeyaana waa inuu akhlaaq yeesho qof aan aqoon lahayn oo aamusan wuxuu ka fiican yahay qof aqoon leh oo aan akhlaaq lahayn sida geedka hadhka fiican leh dadku u jecel yihiin inay hoos fadhiistaan ayay qofka wanaagsanna u jecel yihiin inay la rafiiqaan afka wanaagsanna waxa ka fiican dhaqanka wanaagsan in dadku runta sheegisteeda kugu nacaana waxa ka xun in beenta sheegisteeda ay kugu jeclaadaan siday cagtaadu dhulka meesha boodhka leh raad ugaga tegayso ayuu dhawaqa iyo codka afkaaga ka soo baxayaa dhagaha dadka saamayn ugu yeelanayaa markaa ha isku dayin inaad codkaaga kor u qaaddo oo aad qayliso waxaad se isku daydaa inaad habfikirkaaga kor u qaaddo mar kastood habfikirkaaga kor u qaadana waxaa isbeddelaya habdhaqankaaga mar kastoo habdhaqankaagu isbeddelana waxaa isbeddelaya habnololeedkaaga dadkuna intay aqliga ka fikiraan waxaa ka badan intay indhaha ka fikiraan noloshu ma dhammaato balse way isbeddeshaa fursaduhuna ma qarsoomaan balse way dayacmaan 7 maalmood ee toddobaadka ku jira miyay kaa wada farxinayaan soo maalin kugu adag iyo maalin ku wanaagsan bay yeelan maayaan sidaanay 7 maalmood ee toddobaadka ku jira ku wada raali gelinayn ayaanay dadkuna ku wada raali gelinayne ha u fiirfiirsan qof kastana ku ixtiraan dhaqankiisa hana ka doonin dabeecad isku wada mid ah waayo ma jirto dawo dadkoo dhan si isku mid u wada dawaysaa iyagoo xanuunkoodu kala duwan yahay haddaad iminka hawl wanaagsan qabato dadku ma ilaawayaan hawsha wanaagsan ee aad qabatay mana xasuusanayaan waqtiga aad ku qabatay intuu leekaa iyo dhibta aad ka soo martay sidaa darteed iska ilaali fudaydka iyo degdega si hawl kastood qabataa u wanaagsanaato waxaa laga yaabaa inay idinku jiraan inama farshaxanka iyo sawir gamceedka ku fiicanay haddiiba ay dhacdo
oo lagu yidhaa bal doqonnimadu siday u eeg tahay sawir ku muuji, waa suuragal inay kugu adkaato sidaad u ekaysiin lahayd. laakiin doqonnimadii iyadoo daayar oo aan daalayn oo aan nasanayn ayay 24 saacadood ku soo hormartaa. mar haddii baraha bulshada ay ku murmayaan 20 jirro ku doodaya reerkayaga reerkiina ka wanaagsan. taana waan idinka waaninayaa. halkan waxaan idinku hayaa maanse la yidhaa darajo. maansadaasaan idinla wadaagayaa. darajiya karaamooy, marna deeq ilaahey, marna duubka sharaftaay, guulay dagaal badan, qofalnaa ku daydaya, damaclaa ku raadsada, dadaal baa ku soo helaa, qolof diinni yeesho, damqashiya axdaayaa dulqaad kugu ilaashee kuma sidanin dabacsani. libta laysu dacare mana weydi dibu riday markaad ku durugtaba dabra himiladaade, noqo ruux dalluuntiiyo hadba dabinka hoos yaal dusha sare ka garan karaa. qasab maaha inaad guulaysataa, waxaase qasaba inaad isku daydo inaad guulaysato. guushana waxaa shardi u ah caqabadaha iyo dhibaatooyinka. haddaad horumar ku tallaabsato oo ay jiraan ama aad aragto dad badan oo kaa hor yimi, macnaheedu maaha adaa lagaa hor yimide, guushaa laga hor yimid. qofkuna cadowga ma laha ee guushaa leh. duniya aad ka tahay boqor ha ka noqon qof dayraa, dahab baad u dhalatee sida maar ha doorsamin, karaamaad ku dadantee sida duunya ha u lumin, adigoo dal hagi karaa aduu ha isla daadegin, dhegtu way da'weyntee magacaaga diib mari, taariikh baa dambaysee ha ka tegin wax laga dido. waxaa uunka kugu dara daralee gob kaa dhiga, dunsamaanta weeye, noqon ruux ka daahira waxa sharafta kaa dila oo mudan ku dayashana. mar inaad wax doontiyo mar inaad wax diidaa, mar inaad wax daysiiyo mar inaad wax damacdaa, kolba waa duruufaha go'aanada dabraayiyo waayahaad la deris tahay docda aad ka joogtee, daliilkaagu yuu noqon dannigiiyo malayntee, qorshe yeelo kuu dana. qofna dunida muu dhalan isagoo haldooroo dadku wada qiraayo xidhan duubka sharaftee, waxaa ruux ka dhiga dayax duni wada iftiinshaa, dadaalkiiyo aqoontee hankuyuu dibku u dhigin. ma jiro qof inaga mida oo dhashay isagoo saamayntiisa, xumaantiisa iyo wanaaggiisa iyo qofnimadiisa dadku isla garanayaan, balse dhalashadiisa kadib siduu isku dhiso, u dadaalo, u muuqdo ayuunbaa soo saarta miisaankiisa iyo qofnimadiisa. qof haddaad istirirtaan misna xoog lagugu diro, hal mar baad ku dagantee waxaa duubi feedhkii, duulaan ka sii culus maskaxdoo lagugu dilo. haddiiba ay dhacdo inaad qof isdishaan oo muruq ahaan lagaga adkaado, hal mar uunbaa laga adkaaday. balse haddii maskax ahaan laga adkaado, dhammidaaba waa laga adkaaday. duxda waana maqalkaa daralee xambaartee, marka ruux dantaada iyo kuu akhriyo duruusaha dareenkiiyo dhagaha furo, marka ruux ku durayaa dhaliishaada daydayo, istifaaxal maahee u adkaysa deelqaaf. haddii lagula dabagalo xuma lagula daydayo, ha qaniinin debintee, u dulqaada aadmiga. way badan yihiin dadka nasiibka u helaa in la dhiirigeliyo, la waaniyo, wax loo sheego. way siir yihiin inta ku dhaqanta ee qaadataa. marka wax laguu sheegaya dhegaysiga ku fiicnow, marka lagu dhaliilayo dulqaadka badi, marka lagu eedaynayana samir iyo adkaysi yeelo. marka deeq laguu huray tahay hooy daba soco, dookhaagu waa dookh ninku dilay karaystee, yaan duunya xilashadu kaa ridin dalluuntoo duruufuhu la haystiyo wax madiida kaa dhigin. danley iyo adoo noqon baahi ruuxa lagu dago, marna doonis ruux kale ha u gelin dunuubtoo dadka ha isku waayina fushataada daayacan.
waxa la yidhaha doqonkay sugi fariid buu noqdaa balse fariidka isla boodaa doqon buu noqdaa wakhtiga ku saaciday da'daada noloshaada caafimaadkaaga darteed ha isla boodin qof dunuub lahaa jiray dumay oo qubuur galay mar kaleeta degelkiya iman maayo dunidee dayashada qof liitiya dulligu ay tixraaci waxaa darajo hoos maray ka damiirku meed yahay dusha qolofku nool yahay ee xumaan ku dabagalay khaladaadka waa layskaga daydaa haddiiba dadku ay ku daydaan dad dhintay oo kharribnaa oo dhaqankoodu liitay macnaheedu maaha dadkiibaa dib u soo noolaaday ee waa ka nool baa dhintay ee dharkuun iska xidhan war maxaa ku dayashada Michael Jackson kaaga cabaa adigoo heli kara Sheekh Mustafa yaan dulqaadku kaa dhigin qof damiirku meed yahay fudaydkuna adoo dagan magacaaga yuu dilin ha yeeshee duntaadiya inaad tahay qof daacada adigoon ku daalayn dadka kale ka dhaadhici dabcigaagu ka tahay ha ku sheego dabada dadka waayahaa bara diihaalkiiyo dhibaatada ka dabaaladkoodii miyaan dani ku seetayn wakhti daran ku soo marin intaa dunida noolayd dayac maana soo arag maxaa duubigaaga iyo gacmahaaga dib u xidhay miyaan duurka nololeed qabyadii ku dacalool markuu doono qayrkaa aqoon inuu ku duuloo dayax iyo cirkaa tago adna maaha daawo dabar garashadaade wax kuu diiday curintee fahankiiyo dareenkii kaa daboolay ii sheeg marka dayma raadcada dihashada wax kugu cusub durba keena qayrkaa adna maaha daba joog wuxuu doorba keena oo dalbashada ku kaaftoon marka damaca qayrkaa yahay duni dhan maaree adna maaha dibuguur oo hankaaga duuduub darajada wax kaa xiga oon dadaalahayn sheeg dhididka iyo cadeedda igu dhacasaa waxay tusaale u tahay inay taateedii idinku dhacso intaasaan ku hakin